السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا خيارتا شرفتا iyo qiimaha leh waa idin soo dhaweynaya soo dhawaada idin leeyahay waa mar kale iyo barnaamijkii Minas Health. maanta waxaan idinla qaybsanayaa finanka wajiga waxa keena sababta ay finanku kugu soo baxaan iyo waxa ka yareyn kara ama ka joojin kara completely ayaan ka hadlaynaa. finanka wajiga waa kala nooc qaar waxaa la dhahaa blackheads waa af madmadow ay leeyihiin qaar waxaa la dhahaa whiteheads waa kuwa finanka ku jira maaragtay malaxda ku jirta qaarna waa gudguduudan yihiin qaarna waa sida rashka oo kale xasaasiyad ayaan dhahnaa waa rash waa iska rash. marka finanka waxa keeni kara waxyaabo badan ay ugu horeyso number 1 hormoniska hormoonada jirka oo isbedela bani aadamka hormoonadiisa way isbedelaan marba waasi marka hormone change hormoono isbedela ayaa keeni kara. waxa kaloo keeni kara wax aad cuntay cuntada qaarkeed ayaa finanka ku keeni karta taas anaga dad badan oo anaga naga mid ah ayaan ogeyn waxyaabo badan aad cuntay ayaa ku keeni kara. number 3 waxa keeni kara wax aad marsatay waxaad wajiga marsatay ayaa ku keeni kara taas malaha dad badan og waxyaabaha aad marsatay inay finan ku keenaan. marka waxyaabaha hormoonada waa ognahay waa hormoonada waan leenahay bani aadamka hormoonu leeyahay wax laga qaban karo malaha taas ilaa aad ogaato hormoonadaada waxa sababta keentay inay isbedelaan waa inaad maaragtay hormoonada balance aad ka dhigtaa mar walba hormoonada sideeda waa inay balance ahaadaan laakiin sababta ay imbalance u noqdaan waa inaad ogaataa oo taas la daweeyaa. kuwa hormoonada keenay waxa lagu daaweyn kaliya waa inaad ogaataa waxa hormoonadaadu ay imbalance u noqdaan waayo iskama imaadaan hormoonada markay imbalance noqdaan ayay finanku ay wajiga kaaga soo baxaan. tan labaad cuntada finanka cuntada keenta maxaa kamid ah horta qofba waasi bani aadamku isku mid maaha laakiin badanaa waxa finanka keena waxa u badan dairy wax la dhaho sida caanaha oo kale caanaha lo'da cheese-ka oo kale waxa keeni kara oo kale chocolate oo kale waxa keeni kara waxyaabahan maaragtay oo processka la dhaho sida burka oo maaragtay kan wareegsan ee la dhaho burka wareegsan ee donutka la dhaho adi waxyaabahan processka lagu sameeyo biscuitka qaarkiis cake qaarkood oo kuwa banaanka laga soo gato kuwa guryaha lagu sameystaa la qaatay laakiin kuwan kale ee banaanka laga soo gato waxaa laga yaabaa in ay chemical badan ay ku jiraan ay marka chemicals badan ee meesha ku jira ay ku dhibayaan ayaa laga yaabaa. marka all processed food xataa ha noqoto sonkorta waxyaabaha sonkorta ku badan sonkorta naftirkeeda way kala duwan tahay sonkor badan oo waxaa jirta aan sonkorta caadiga aan naqaano aan ahayn oo sonkor badan oo la sameeyay ayaa jirta. cabitaanka qaarkiis cabitaan badan oo waxaa jira maaragtay isaguna saas oo kale flavoring wax la dhaho ku jira oo rinji ayaa ku jira cabitaanka badanaa qaar gaduudan qaar jaallo ah qaar waa kalaro kala duwan. marka rinjigaas ayaa laga yaabaa inuu ku daran yahay flavoringka waxyaabaha lagu daro ayaa laga yaabaa inay ku daran yihiin. marka cuntada laakiin waxa ugu muhiimsan oo anigaba aan kamid ahay finanka badan aniga waxa ii keena chocolate cheese-ka uu ii keenaa saas oo kale kreemooyinka qaar waa ii keenaa waayo ingredient waxa ku jira ayay ku xiran tahay. marka waa iska fiiri mar walba waxaa wanaagsan inaad ogaato waxa ku keenaya. waxyaabaha videoha aan idinkagala hadlay last time oo ay kamid tahay make up expire ka noqoto oo kale haddii aad daawateen video aan igu horeeyay ee aan sameeyay oo kaga hadlay make up expire noqoto wax dhibaatooyinka ay wajiga u keento finanka kamid ahaa. marka saas oo kalena way dhacdaa make up expire noqotay ama cream expire noqday waxyaabahaas oo kale hadaad cunto marsato finanku way keenaan waxaas. marka badanaa waxa marsanaa wax la yiraahdo kreemooyinka waxa ku jira wax la yiraahdo acid
haddii aad finan leedahay badanaa kareemooyinka loogu talagalay finanka inay baabi'iyaan waxa ku jira acid marka acidka iska ilaali waayo waxaa laga yaabaa inay ku gubaan oo finanka ay maaragtay madow ay sii noqdaan ama ay sii bataan dadka qaarkiis ay ku bataan marka wax acid ku jira haddii aad finan leedahay waayo finku waa boogtuna acidka uma fiicna weliba boogta wejiga gasha wejiga waa khafiif marka wejiga isagii waa khafiif haddii finkii oo wejiga ku yaalay ama boogtii wejiga ku taalay aad acid mariso waxaa laga yaabaa meesha inay sii gubato oo sii horto oo wejiga uu maaragtay madow ka noqdo ama boogtii waa ay sii fido marka fin haddii aad wejiga ku leedahay badanaa horta number 1 waa inaad ogaataa sababta aad finkaas aad u yeelatay ama nabarkaas aad u yeelatay waa inaad ogaataa why uu kugu soo baxay maxaa jira number 1 ma hormoonada number 2 ma cunto aad cuntaya number 3 ma wax aad marsataya badanaa waa inaad dib isugu noqotaa oo ogaataa maxaa ii keenay intaanu finkan nabrahan wejiga aan yeelanin maxaa isticmaalay maxaan cunay maxaa igu cusub chicken waa keentaa badanaa dad badan oo chicken ay u keentaan waan arkay doorada oo kale ama digaaga dad badan oo ay fiban u keentaan waan arkay waa laga yaabaa digaag inaad cuntay waa laga yaabaa inaad chocolate cuntay ama cheese cuntay uu ku keenay marka dib isugu noqo oo ogow waxa ugu wanaagsanna waa inaad joojisaa waxa ku keenay ma aha markuu nabrihii ay wejigu ay kugu soo bataan ayaan wax marinayaa oo because waxan hoos ayay ka imaanayaan marka fiman haddaad leedahay please ka taxadir oo ogow waxyaabaha kugu cusub ee isticmaasho aad cuntay especially aad cuntay iyo wax kugu cusub oo aad wejiga marsatay marka iska jooji waxyaabahaas oo kale kadib markaad ogaato waxa wejiga maaragtay fimanka kaaga soo bixiyay jooji waxaas then kadib nabrihii kugu yaala waa daaweyn kartaa waayo dib uma soo baxayaan laakiin wixii hadday adigana is leedahay kuwan kugu yaala daaweyn kuwa kale ay hoos ka soo baxayaan marka it's just waste of time maantana intaas ayaan idinla qaybsanayaa waa inoo iyo next video insha allah assalaamu calaykum